Faizo Maxamed Cabdi oo ka mid ah gabdhaha Soomaalida ee ku nool magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari isla markaana halkaasi askari ka tirsan ciidamada maamulka Puntland uu doonayay in gabadhaasi kufsi uu kala dhaqaaqo balse ay diiday kufsigaasi waxa uu ku furay rasaas taasoo ka haleeshay qaybta taranka. Gabadha oo xaalad caafimaad dartiis loogu soo qaaday magaalada Muqdisho ayaa muddo 3 bilood waxay ku jirtay mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho oo xaaladeeda caafimaad lagu dabiibayay. Inkastoo dhaqaatiirta isbitaalka ay ku jirtay markii dambe ehelada gabadha ay ku wargeliyeen in gabadhani xaaladeeda caafimaad aan wax looga qaban karin gudaha waddanka Soomaaliya isla markaana ay u baahan tahay in loo qaado dalka dibadiisa. Qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ayaa ehelada gabadhaasi waxay ka codsadeen in gacan ay ku siiyaan gabadhooda dalka dibadiisa loo qaado waxaana arrintaasi markii dambe ka jawaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqa Muqdisho Thabit Cabdi Maxamed oo ku guuleystay maanta in gabadhaasi loo qaado waddankaasi Turkiga. Garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho waxaa ku sugnaa mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo ehelada gabadha. Gudoomiye Thabit oo warbaahinta kula hadlay gudaha garoonka diyaaradaha aadan cadde ayaa waxa uu sheegay in gabadhani loo qaadayo waddankaasi Turkiga si xaaladeeda caafimaad wax looga qabto. Wuxuuna gudoomiye Thabit ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed inay iscaawiyaan. saakay waxaa ilaahay mahadiisa aan nimid garoonka caalamiga ee aadan cadde international airport magaalada Muqdisho Soomaaliya aan maanta oo sabti ay tahay taariikhda 23 December ayaan halkan nimid annagoo sagootinayno una duceynayno aan caafimaadna insha Allah safar caafimaad oo guul leh u rajeynayno walaasheen Faizo Maxamed Cabdi oo runtii xaalad aad u adag ku sugnayd oo 16 sano kaliya jirta laakiin waxaan aaminsanahay marka la isgarab galo loona duceeyo la isku dadaalo inuu ilaahay caafimaad soo siin doono insha Allah safarkeedana uu noqon doono safar caafimaad oo guul leh. Faizo xaaladeeda iyo arrimaheeda caafimaad wax hadal lagu koobi karo ma aha laakiin ilaahay waxa uga baryaa inuu ilaahay caafimaad soo siiyo kuna soo guuleeyo. waxaan u mahadcelinayaa qof walba oo ka qayb qaadatay من إلا ماشي ليك وكسو جاري إلا أنت استعال كوجرتي ما هي إن أنت قاعد قف صومالي وضمير له لكن أنا ما كنا لسوا جارسي وحن قبكرنا وكود دالني لكن إسكاشيا صمد إسكاشتي وحلا إلهي ودك أبى المرنا يا ونيد هاني شقهاني قفل بسوقبتي sidoo kale Maxamed Cabdi oo dhalay Faizo oo isna dhankiisa warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu u mahadceliyay maamulka gobolka Banaadir. Gudoomiye Thabit iyo agaasimihiisa iyo dhammaan dadkii hawsha Faizo ka qayb qaatay dal iyo dibad aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa mahadaan la soo koobi karin yaan u mahadcelinayaa gabadha Faizo Maxamed Cabdi dadka ka qayb qaatay hawlaheeda gudoomiye Thabit gudoomiye Maxamed Ismaaciil iyo dhammaan maamulka gobolka Banaadir waxaan u rajaynayaa guul waarta ayaan u rajaynayaa waana uga mahadcelinayaa arrinta. Dhawaan ay ahayd markii maamulka gobolka Banaadir magaalada Muqdisho uu ka qaaday wiil yar oo dhinaca wadnaha ka xanuunsanaa kaasoo ugu dambeyntii gobolka Banaadir uu ku guuleystay in xaalad caafimaad wiilkaasi loogu qaado waddankaasi Turkiga. Cabdiraxmaan Waaberi, Somali News, Muqdisho.